السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan walaal shacabka YouTube kan waa Abdulqaadir Xasan Abduliye. maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa wadanka Faransiiska oo dadka qaxootiga ah fursado siin doona sharciyada isbedel badan oo ku sameyn doono. haddaba muuqaalka ayaan kugu la wadaagi doonaa haddii aad doonayso kadib Europe inaad timaadid ama aad Faransiiska tagtid muuqaalkan ku anfacaya. haddii ay tahay markii kugu horeysay ee bartan walaal shacabka YouTube ka soo booqatid qaybta hoose subscribe inoo riix sidoo kale like waa inoo muhiim. muuqaalo tiro badan ayaa bartiin walaal shacabka YouTube ku jira. Faransiiska ayaa loo saadaalinayaa in markaasi uu ka mid yahay wadamada uu ka dhici doono koobka adduunka ee 2026 dhici doono. haddaba maadaama uu isbedelkaasi uu jiro wadankana uu u baahan yahay in uu dhismooyin uu sameeyo qarash badan uu soo galayo si uu uga faa'iideysto koobka caalamiga ah ama koobka adduunka ee wadankaas lagu qaban doono. isbedel badan ayuu markaasi sameynaya iminka kuwaas oo markaasi uu dadka qaxootiga ah ee wadankiisa joogo uu ku qaabilayo sharciyana uu ku siinayo. dad badan oo wadanka Faransiiska jooga oo qaxooti ah iska dhiibay oo aanan haysan hooy oo markaasi seexda wadooyinka ayaa jira. ilaa ma qofku iska dhiibayo oo guri laga siinayo ka hor waxay dadku seexdaan wadooyinka wadanka Faransiiska. isbedel ayuu markaasi sameeyay oo markaasi uu ku doonayo dadka in uu siiyo hooy ama meel ay seexdaan. isla markaana dadka waxa loo boobsiinayaa iminka wadanka Faransiiska joogo in ay interview maraan oo sharci la siiyo. marka dadka iminka tagaya iyo dadkii hore u joogay ee aan sharciyada ka haysan runtii waa fursad fiican oo markaasi ay sharciyo ku helayaan guriyana ay ku helayaan. marka haddii aad doonaysid inaad timaadid Europe Faransiiska hamoogan ayaan ku leeyahay. muuqaalkayga intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. inta muuqaal kale ku kulmi doono waxaan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.